haddii aad in badan maqli jirtay jacaylku xuduud ma leh, haddaba wiil Suuriyaan oo ku nool dalka Jarmalka ayaa waxa uu shukaansaday haween isla wadanka Suuriya kasoo jeeda. Labadan shaqsi waxay ku noolaan magaaladiisa Leydha sida ay warbaahintu soo tabinayso. Sheekadooda ayaa waxay soo jeetay dhammaan baraha bulshada Jarmalka iyo waxyaabaha ku duugan ee ay dadku aad ula yaabeen. Yurub haddii uu ninka rag uu damco inuu haweeney kala shukaansado, xorriyadiisa isaga ayaa u gaara way yidhaahdaan. oo waxa weeye qawaaniintii iyo sharciyadii iyo diintii aynu ku dhaqmi jirnay soo barayd ee wadamadeena aynu kula nooleed waxaasoo dhan waad ka imanaysaa. Haddaba aynu ujeedada sheekada u gudagal leh, wiilkan ayaa waxa uu haweeneydan iyo isaguba ay go'aan ku gaadheen inay jacaylkooda kor u sii qaadaan, horumarna ay ka gaadhaan nolosha. Waxay wada yimaadeen hotel aanay islahayn ama leelada cuntada laga cuno ama cashooyinka lagu ballanmo, ayaa waxay yimaadeen labadoodii iyagoo ku faraxsan inay wadaagaan nolol farxad wadaagta. Kadib waxbaanan hadalkeedii ugu daarin in labadii qof halkii waqtigooda ku qaadanayo islahayn cid bayd oo waxaa ka war helay haweeneydii reerkooda ama qoyskoodii. Hoosta ayaa la iska soo wada qanjiriyey, qof kastaaba qof kale ayuu u habar wacay. Kadib meeshii waxaa iskugu yimid khalqigii Suuriyaanka ahaa oo laba koox u kala jaban. Wiilka laftigiisa waxa uu ka war helay xaaladdu inay cakiran tahay oo reerkoodii iyo familygooda iyo asxaabtiisa uu hoos ka wacay kuwii isaga la socday dusha ka ilaalinayna. Sheekada marka hore waa ogaayay waxa weeye iyaguna cidii ay wici kareen bay waceen. Halkiiba waxa mar kaliya ay qabti ku qabsatay haweeneydii oo daacada oo xaaladda la socon iyo wiilkii oo isagu xaaladda la socday laakiin feejignaantiisa ay heer sare ahayd. Kadib halkii maxaa ka dhacay? Waxaa lagu wada war helay mar kaliya iyadoo meeshii la isla dhex qaadayo hudadka, faashka, midiyaha iyo wax kastoo qof lagu waxyeelayn karo. Hoteelkii ama restaurantigii mar kaliya ayuu wuxuu isku bedelay fawdo dhiigu qubanayo. Ciidamada booliska ayaa isla markiiba soo gaadhay, wixii ay qaban kareen way qabteen, wixii dhakhtarka loola carari karay waa loola cararay. Sheekaduna waxay ku tusaysaa wadamada Carabta iyo waliba Turkida iyo qaar kale oo bariga dhexe ah in hablahooda la shukaansada inaanay wax fudud ahayn. Soomaalida waxaa leeyahay ka taxadira xaaladan oo kale yaanay kugu qabsan. aad baan idin salaamay meelkasta dunida guudka aad kaga soo intiin. Dhacdooyin kale ay ku soo noqdaan qaaradda Yurub iyo wadamada caalamkaba. Soomaalida laftigeeduna arrimahan oo kale way ina soo dhex martaa sababtoo ah waxaan hoos iskugu eegnaa qabaa'il inagoo qabiilba kale uu leeyahay waan ka heer sarreeyaa ama waan ka sarreeyaa nama geeyo. Marka Carabta laftigooda iyo Turkiduba waxay leeyihiin nidaam noocaas oo wax way qabaa'ilka qaar ma guursan karaan haweenka qabaa'ilka isku haysta inay ka tuumayeen. Salaam lah.